بسم الله الرحمن الرحيم دمان أصحابت بيجك كحرن أنت نقول عصب وحان إذن لي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كنسر كناسها كدعو غارهان هاوينكو هوري أيان وقصو هذلني وحياواها معقول كاي سببي كرو قطرها بدن دبعا أو كوي ماني كرو كنسركا إن دبعا أويا هاي كنسركا وقوب لارن وحيالا دا مركي لغاها الله كنسرسكي قيبها كلا دوبان waayahan dambana dhimasho badan ku haya bulshada Soomaaliyeed marka maanta waxaan ka hadlaynaa sida ugu muhiimsan aad ku ogaan kartid ama calaamadaha aad ku fahmi kartid hadii aad dabcan aad ku dadaashid waxa laga yaabaa inuusan ku saameynin kansarkaas waxyeeladiisa waqti horeba aad ogaan kartid aad la xiriiri kartid dhakhtar daawooyinka ugu habboonayna lagu siin karo dabcan maxaa kamid ah marka calaamadihiisa marka ugu horeyso wax calaamado lagu fahmi karo malahan kansarka ku dhaco naasaha qofka asagoo aan is ogeyn ayuu wuxuu sameeyay karaa internal progression uu sii faafi karaa kansarka naaska qaybihiisa kala duwan ayuu u gudbi karaa early stage-ka gabdhuhu sida ay ku fahmaan aad iyo aad ay u adag tahay ama haweenku dabcan waxa laga rabaa qofku inuu asaga uu sameeyo self investigation baaritaan asaga gudihiisa ah inuu isku sameeyo intuusan dhakhtar dabcan uusan la xiriirin labadii bilood uu joogo waxa laga rabaa in self investigation inuu sameeyo qofka gacmihiisa ayuu gabadha gacmaheeda ay kor u taagaysaa labadii bilood markii la joogo dabcan waxay sameynaysaa in circular motion wax loo yaqaano ee naasku u kontrolsho qaybihiisa hoose ilaa qaybahan kore internal pushing ay ku sameyso ee riixdo inay ogaato inuu jiro wax loo yaqaano dabcan lambi ama waxyaabo ku kuusan sida wax arjo oo kale ama dabcan wax ku sameysmo gudihiisa sidoo kale inay ogaato in labada naas aysan sineen ee kala yihiin kuwa kala dhaadheer waxay noqon karaan dabcan mid ayaa wuxuu noqon karaa inuu soo dheeraado halka midka kalena dabcan normal size-kiisu uu yahay sidoo kale gabadha markay ay muraayad isku fiiriso oo physical examination ay isku daraasaynayso waa inay ogaataa dabcan labada naas normal size-koodu ma yahay mid inuu bararsan yahay oo enlargement uu ku dhacay iyo in midka kale uu caadi u yahay waa inay ayada ogaataa dabcan calaamadahaas hadii ay soo baxaan waa marka ay ka gaari karto dhakhtarna inay la xiriiri karto maxaa ka soo muuqanaya marka sayniska lagu ogaani karo guud ahaan waxa ugu horeeya dabcan naaski waxa lagu arkaa inuu yahay asymmetrical labada naas ma sinna midaa soo dheeraanaya midka kalena dabcan waa normal size-kiisa ama midaa bararaya dabcan waxay ku arkaysaa oo kale in naaski ibtiisa ay dimbling ay sameynayso ee gudaha ay ku sii aruureyso ee retraction ay gudaha uu sii jiidanayo kansariska ama tumarka ama buradii gudaha ku sameysantay waxa kale naaska ibidiisa lagu arkaa marka ay toojiso gabadha inay ka soo baxayso discharge malax wax u eg ama dhiig wax ku jiro ayaa lagu arki karaa taasoo calaamadaha khatarta ee ku muujin karo in uu jiri karo kansar oo naaska ku dhaco waxa kale lagu arki karaa in wax bur camal inay ku sameysantay kilkisha qaybaheeda kore inay soo kuusantay taasoo ay dhici karto lymph nodeska meesha ku yaalo inuu kansarka uu sii saameeyo uu kor u gudbi karo waxa kale dabcan kansarka naasaha lagu fahmi karaa inuu yahay midabka kale marka loo fiiriyo labada naas la isla fiiriyo inuu aad iyo aad ugu macnaha midab duban yahay dabcan waxyeelada kansarka aad iyo aad ayay waayahan dambe u soo badatay waxa laga rabaa qof walba inuu ka foojignaado dabcan gabdhaha keligooda ma aha dumarka qaybahooda kala duwan inay sii ogaadaan in khataro badan ay kaga imaan karto kansarka naasaha anigoo ah Dr. Maxamed Diiwaan Maxamed waxaan idin leeyahay aad iyo aad u mahadsantihiin